السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أن جعلها ملك استعدون كدافيس كجوكتان وحيد الله عزي عافمات نولادا وأنا جواه ولا شيء مهودة هلكا إيجا داوتين ومهودة channel ما شاء الله وحيد الله والله إن شاء الله مركلة إيا مانتي فيديو عصب إن شاء الله بإذن الرحمن هدو إله إن وحيد الله وذاقا مانتا إن شاء الله جدول كيجا مانتا والسبتي وويكاندي بشي بركيسنين إن شاء الله وحكا لمن وحير marka ayaantaan oo dhan insha Allah hawl adduunyo la waday hawlna ma dhamaad sida aan wada ognahay marka insha Allah biidmi rahmaan maanta iyo jadwalkayga idila qaybsanaya haduu Ilaahay idmo walaalaha ma sha Allah dhiirigelintiina aad ugu mahadsantiin gabdhahayga quruxda badan ma sha Allah isoo dhiirigeliyo insha Allah qofka walaalkaaga moora dhiirigeliso moor energy uu ka sii helo dhiirigelintaada marka waxaan idin leeyahay insha Allah isla bilowno haduu Ilaahay raali ka noqdo maanta iyo sidii bal intii hawsha aad u fara badan tahay Ilaahay ha sahlo ha saqiro inaan quick aan ku qabtaan rajeynaya haduu Ilaahay ogolaado marka waxa idin leeyahay insha Allah bisha barakeysan dhamaanteen isu diyaarino hadii Ilaahay uu nolol noo kaso si aan insha Allah aanu cibaadaysano meel walba noo qurux badan anagoo u diyaarsan aan soo dhaweyno waa marka kaliya wax weeyaan muslimiinta ay leeyihiin xilli ay sugaan marka intii dhimatay Ilaahay oo u qadarin hada anaga ku jirno iyo hadii Ilaahay oo noo kasay inaan aan soonaba Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dambiga waalidiinteena inuu dhaafo kuwii cimri dheer iyo caafimaad ku soo mar Rabbi inaga dhigo intii dhimatayna waxaan leenahay Rabbi ha u naxariisto Ilaahay masiibooyinka wareegaya iyo xanuunadan taaganna intii u dhimatay Allah u naxariistaan leenahay inta u xanuunsan Rabbi ha shaafiyo Ilaahay anagana ha inaga badbaadiyo inta muslimiin ah dadka aan la noolnahayna waa la noolnahay waxaan leenahay Allah ka dulqaado marka insha Allah isla bilowno hawsha waxaan idin leeyahay insha Allah channelku waa channelkiina insha Allah support grant waa dhankiina waxaan rajaynayaa insha Allah channel balaaran uu noqdo maadaama uu cusub yahay inaad sii share gareysiin hadii aan ugu cusubtahay oo nadaawanaysid oo si aad saaxiibkeena dhawaad u noqoto kambalelka furo subscribe-na noo dheh waxaan idin leeyahay aad u mahadsantiin walaalay hore ila sii joogo waxaan leeyahay walaalaana aad u jecelahay tihiin daawashadiina waa ku mahadsantihiin marka waxaan idin leeyahay maanta iyo hawl wacan insha Allah aan wada shaqeyna biidmi rahmaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma sha Allah walaalay waxaan ka bilaabayaa luuqa waxaan ka soo laabayaa rooga insha Allah kadibna insha Allah qolalka caruurtan soo hagaajinaya haduu Ilaahay idmo qolka gabdhahan ku soo hormaray sariirta kor iyo hoos waaye kadib waxaan sameynayaa gooyaasha inaan ka bedelo hadda maadaama oo wax way samar la galay oo kuleel ma sha Allah oo bilowday waxaan sameynayaa inaan baatiyaal u wada saaro caruurta insha Allah haduu Ilaahay ogolaado baatiyaashaas aan soo saaraya bustaheeda waa u jafjafay hoos nihaala degan ma sha Allah meeshaasna kindavaankii ii yaalo daaradda waxaan ku dhaqaayay roog markaas la ajligeedan qolka u soo gashtay ما شاء الله مساحات يرى وقصو قبنايا ما شاء الله تبارك الله دولكي مركان أصو مساحي قبليه ما شاء الله قروح وقصو بحي دولك دان داوذا عن كل قايو ما شاء الله داو وشاين سميني سواي قولك أميرا سو آذي هداني أمير قولكي سوحان رواينا بوستها عن قلق كبدلو قو أنا محرير هذا عن باتي أسارو فراشكا ما شاء الله ضراد ما شاء الله سفي عن قرويها أغسي شقي هيد لكن وحير بستان كده دجينايا هدو إلهي إدمو ما شاء الله مركان بستان كده دجيو maadaama hadda oo samar la galay nafta waxay u baahan tahay meel qabow ma sha Allah inay seexato marka walaalahay aan jeclahay baatigaas aan u saaraya qof kasta baatigaas gabdhahan waa u soo saaray wiilkan waa u saaray ma sha Allah marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iidi doontiin haduu Ilaahay raado waa dhiirigelin hooyo ma sha Allah qof kasta howl ma garan loo laakiin ma sha Allah waxa waaye dhiirigelin in la is dhiirigeliyo way muhiimadeena ما شاء الله walaalay aan jeclahay marka waxaan idin leeyahay xilli wala idii tahay xilli barakeysan Ilaahay idii ka dhigo raalli ahaada codkii kala go'aayo gadaalanka idid gareynaya hadii qaladaad la arko insha Allah waxa way hal iyo cudur daaro walaalay aan jeclahay daawadaas aan ku dhaqaayo dhulka waxaan ka soo iibiyay DM-ka
maxaa la yiraahdaa dhulka shiny u sameynaysaa biyo ma ku tirtirihaya doraadan guriga si fiican u dhaqay wax wasaqo tiro badan kama soo baxayso waa arkaysiin marka dhulka inuu caraf iyo maasha Allah shiny inuu sameeyo un bay muhiimadeyda tahay gooyaashii aan ka bedelin hore waxaan ugu sii ridayaa qasaalada maasha Allah daaradan maydhaya guriga dhan ana waxaan jeclaa shaqada inaan dhinac ka bilaabo dhinac kale uga baxo marka jikada iyo dhinacaas iyo fadhiga isxigo dhinacaas farahan saas uga qaaday laakiin dhankan hurdada iyo maxaa la yiraahdaa qolkayga hurdada idin lama wadaagin babyadii reesteeda jiifto maasha Allah asagana waan iska jafjafay maasha Allah nadiif uu iska yahay marka dhulkan saan u dhaqayaa daarada dheer maasha Allah daaradan way caddahay aad waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa u tahay wax aad u dhib badan wax yar haday gaaraan mar walba waxa masaxada laga daba wato markii la dhaqana aad iyo aad guriga u qurux badan yahay marka maasha Allah nadaafada in lagu dadaalo wax aad iyo aad muhiim u ah nadaafada waa iimaanka barkeeda maasha Allah gurigaaga moor uu maasha Allah nadiif yahay moor aad ku raaxaysanaysid marka walaalahay aan jeclaa fadhigan haddan isla tagaynaa fadhiga waa u jeediin saakay miiskii lagu quraacday shaloo dhan wax ma qabanay ahayd maadaama aan daraad sii shaqay waxaan dhahay balbawso qaadanaso waa u jeediin way barakeysan yahan ku yiri darmuuskiis caagad saliid macsaro waxaan ku dhahay weelo dhan koob qajaf waxaan ku dhahay tiishkii kabxaka way saaran tahay waa u jeediin amiir uu leeyahay maasha Allah marka ilaaha noo barakeeyo ubadka waxa way ilmahaaga hadii aad tiraahdo fadhiga waan ka karantiilaya waxa way dhibaatay noqonaysaa inay ku maxaa la yiraahdaa guriga dhan ay ku stressaan meel hadii laga celceliyo marka inay gurigooda free u yihiin meel walba ay maxaa la yiraahdaa ay ka fariisan karaan maxaa la yiraahdaa ay kaga ay ku nasan karaan muhiim ah maasha Allah anagana caafimaadka Allah noo barakeeyo aan wax ugu qaban ilaahay hana saacido walaalahay aan jeclahay kuraastana saasan u tirtiraya sababtoo ah nawaaliriisay joogto meel kasta gacmahay saaraysaa marka hadii aan laga daba wadan wixii oo dhan way isku dul dhimanayaan aan si fiican wax loo nadiifinin marka maasha Allah Amira meeshaas bilbilgleynaa marba wax ay weydiinaya imaanayo marka maasha Allah walaalahay kuraasta markaan saan u wada masuuxaan fadhigayga xoog space weyn ma lahan laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin waa wax meel aan ku ceeshayno waa wax laga sheegto waa dambi marka maasha Allah marba dhinaca u riixaya waa isfarsameynaya maadaama oo gadaal dambe miiskayga qadada uu zaaid u weyn yahay insha Allah waxaan rajaynayaa asagana inaan bedelo haduu Ilaahay idmo waa u jeedin fadhigi saan uu baabah u yahay aniga laftirkayga bir dhar oo ku warantahay ii taale meesha birti dharkeed xaqa aniga fadhigan hor u sii saartay hana gaarigeedii lagu luxay meeshu yaala bostayaasheedii barkimihii fadhiga hoostiisa xaqa waxaan ku dhaw waraaqadaha dhihin tiisha dhihin wax walba ka buuxo marka alxamdulillah waxaan oo halay hadaan haysanaba marka waa la hagaajinaa haduu Ilaahay idmo dharkaas saasaan u laalaabay kadibna waan iska xareynaya kadib waa aragteen roogiyan kala meesha waxaan jeclaa in roogina iska jafo si fiican u jafo hoover kaliya ma noqonayso balkoonkan la taga aan ku jafaa marka maasha Allah saa arkaysiin meesha TV-ga qaanadaha kale si fiican u masaxnaayeen laakiin meeshaas hadda ama saxaayo nawaala ayaantan waxay ku haysataa maxaa la yiraahdaa abajonati ku haysataa maasha Allah halkaas ay fariistaa waxay leedahay TV-gan shidanaya marka maasha Allah fadhiga saasaan usoo jafjafay fadhigan hadda aan haystana kayga hore wuxuu kaga fiican yahay maasha Allah dhulka hoostiisa dhan waxaa gelinaysaa geedka wax lagu masaxaayo wasaqda dhan saasa kaga soo saaraysaa sababtoo ah dhas iyo waxba wasaqtoona ma kugu dhuumanayso maasha Allah abo ay maada waa aragteen ani wax ma qaadi kari fadhigu ila qaaday miiska oo shaaha kadibna waa kana meeshii balko waxa la yiraahdaa luuqi dheer aan dhaqay roogiisiyaan ku soo celiyay maasha Allah nur ala nur waa meel kasto meeshaan waxa waaye meesha oo waxa la yiraahdaa dhaxda waaye waxay u dhaxaysaa jikada iyo fadhiga albaabka weyn laga soo galo dhaxda waa gurigayga maasha Allah maasha Allah nadiif alxamdulillah rabbil caalamiin shaqa dheer kadib way ii soo dhamaatay ilaaha mahad iska leh fadhiga maasha Allah jawi degan alxamdulillah waxa ahaysato unba wax weeye wax laga dhigtaa la iska nuursadaa marka alxamdulillah rabbil caalamiin kadibna waxaan rajaynayaa haduu Ilaahay idmo wax yar bawsaan qaadanaya kadibna jikadan aadaya waxaan sameysani qado kadibna wax yar intaan qadeeyo kadib waxaan rabaa inaan aldi aado haduu Ilaahay idmo maanta qado fuul reerka uma karinayo chips iyo maxaa la yiraahdaa kabaabka oo xalaalka oo turkida lagu iibiyo aan sameysanayna haduu Ilaahay idmo kadibna waxaan rajaynayaa in insha Allah aldi aan soo raacno aan soo wada adeegno freezer ko kale waan sii dhaqay ahayd
idin lama wadaagin sababtoo ah videoga aad iyo aad ay u dheeraanaya sababtoo aniga videoyada aad u dheer waan necbahay marka waxaan isiri maasha Allah wax walba maxaa la yiraahdaa bal haaf ka dhig si uusan videoga uunan yacni uu waqti dheer uunan u noqonin marka maasha Allah walaalahay aan jeclahay insha Allah waan soo wada adeegaynaa ani weekly aan soo adeegtaa inta kaleeto Janice lama helaayo maasha Allah marka waxyaabaha iga go'an fruitsko kaleeto qudaarta aan yacni aan waqti dheer aan qaadanayno kala weekly aan soo adeegtaa iyo yogadyada iyo waxaas marka insha Allah kadibna jikadan soo aaday waxaan sameysanayaa jikinkan oo maxaa la yiraahdaa Turkida laga soo iibiyaa xalaal waaye kadibna waxa way boomas yar iyo waxaan sameysanayaa chipsigiisa iyo asaga kadib qadayra cunaya haduu Ilaahay idmo kadibna insha Allah aldiyan isla aadina haduu Ilaahay idmo marka walaalahay aan jeclahay maasha Allah walaalahay waa kana qadada sir aniga aan soo qaatay wax yar oo iska easy ah cunaya kadibna insha Allah aldiyan aadaya haduu Ilaahay idmo maanta waxa waaye shaqo dheer aan lahaayay wax jika gelitaan iyo waxaas dhan tabar uma haynin marka maasha Allah chipsigaas iyo maxaa la yiraahdaa chickenkaas yar maasha Allah ka jabkay yar ku soo darsaday kadibna meeshaana waxa weyn siina iskaga qaadanaya tartiib iska qadaynaya kadibna haduu Ilaahay idmo waan diyaar garooba kadibna dukaanka aadaya insha Allah waan isla soo adeegaynaa walaalahay aan jeclahay maasha Allah waa kana aldiya imaaday bilow ilaa dhamaad maxaa la yiraahdaa bilowgii idin lama share gareynin sababtoo ah dukaanka aad saxmadiisa u badneyd aniga bisaana baxay sababtoo karantiila adduunka dhan lagu jira aboowe iyo caruurta guriga ku hareen marka maasha Allah waxay noqonaysaa hadii aan dhinacna wax ka sii duubo inay waqti dheer ay ugu qaadato marka faaginkayga adeega dhan waan ku soo gurtay maasha Allah already adeegii waan soo dhameystay maasha Allah kadibna waxaan rabaa inaan taga haduu Ilaahay makaasada waxba iima dhino waxyaabo yar yar ay dhiman maasha Allah waan ka dhamaaday kadibna insha Allah markaan guriga taga haduu Ilaahay idmo insha Allah adeegan isla habeynayna talaagadan ku wada gurayna haduu Ilaahay qadaro intaas waa dhiirigelin insha Allah waxaan rajeynayaa walaalahay gabdhahayga quruxda badan maasha Allah noo soo badi dhahaan mar walba codsiyadooda inaan tixgeliyaan rajeynayaa marka walaalahay aan jeclahay intaas waxa way dhiirigelin maasha Allah adduunkan aan joogno waa isfarsameys insha Allah marka sidii ugu fudud ugu macquulsan maasha Allah nolosheena aan ku dabaran karno waa inaan ku dabaranaa maalin walba hadda tirada dukaan aan u baxaya suuragal ma noqonayso marka waxa qurux badan waxyaabaha aad isleedahay weegaas oo dhan waa haysan kartaa ina maasha Allah aad soo adeegatid wax walba aad ka soo qaadato inta dukaan isaga daba noqon lahayd ina wax kugu filan aad soo qaadatid weegaas inta aad fadhidid maasha Allah waa kana guriga imaaday adeegii bacyaashii oo dhan aan ka soo rogay jikadan saaray kadibna maasha Allah mid kasta meesha uu ku haboon yahay aan geynaya haduu Ilaahay qadaro marka walaalahay aan jeclahay waxa idin leeyahay insha Allah aan kala baangeyno hawsha maasha Allah anagu bay noo taala hooyo iyada bay shaqo u taala wax weeyaan nolosha hooyo waa nolosha laf dhabarta guriga weeyaan marka sida ugu quruxda badan ee ugu macquulsan maasha Allah aan nolosheena aan u farsameysan karno inaan u farsameysana insha Allah rajeynaya intaasna waa dhiirigelin howlahaas aan idin la wadaagayo maasha Allah gabar kasta nolosheeda nooc bay u qorsheysataa marka bal qorshaha oo muhudana waa kana insha Allah waxaan rajeynayaa hadii aad ka hesheen in insha Allah like-ta aad saari doontiin maasha Allah dhiirigelin weeyaan marka insha Allah walaalahay aan jeclahay waxaan idin leeyahay daawashadiina aad ugu mahadsantihiin support gareyntiina commentiyadiina quruxda badan ee dhiirigelinta leh dhammaantiin waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha nagu cusub insha Allah waxaan idin leeyahay insha Allah like deh insha Allah subscribe noo deh gambaleelkana furo si aad u noqoto saaxiibkeena dhow waxyaabaha aan soo gelino aad noola socoto ka raali noqdo mararka qaar xaqa hadalka waxa way kugu dhagaaya marka aad wax edit gareynaysid marka walaalahay aan jeclahay adeegina saanan kaga dhamaaday mid kasta meesha uu ku haboona oo lahaayaan dhigay maasha Allah inta aan haysan waxaan leenahay Rabbi ha siiyo annagana Allah noo barakeeyo marka waxaan idin leeyahay walaalahay aan jeclahay meel kasto adduunka daafiisa aad ka joogtaan cizi caafimaad ku noolaada ilaahay cudurrada wareegaya in hareer mariyo marka waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu